Shirkadda Facebook ayaa soo wada kontoroolo cusub kadib markii ay ka dalbadeen macaamiisheeda. Kontorooladaas waxaa ka mid ah sida inaad xukumi karto qofka ku soo wici kara ama ku soo dhawaada muuqaalkan. Shirkadda Facebook oo markeedii hore sameysay Messenger Room ayaa mar kale ku soo kordhisay features cusub. Sababta ay markeedii hore u sameysay Messenger Room-ka ayaa ah in ay ula tartanto shirkadda Zoom maadaama ay lumisay users badan markii ay soo shaac baxday shirkadda Zoom. Sababtoo ah dadka badankooda waxay ka shaqeynayaan guryahooda, sidaas darteed si ay u kulmaan waxay isticmaalayeen application-ka Zoom. Maadaama badanaa Facebook loo soo galo entertainment ee dadkana u wareegsan dhanka Zoom maadaama ay shaqadii u badatay guryaha, sidaas darteed dadkan ay u wareegsan application-ka Zoom. Shirkadda Facebook waxay ku lumisay users badan. Si ay u soo ceshatay users-kaas ka lumay waxay soo saartay Messenger Room. Waxay kaloo soo kordhisay update cusub oo ah in aad isku keeni karto room 50 qofood. 50kaas qofoodna waxaa ka mid noqon kara qof Facebook isticmaala iyo qof aan Facebook isticmaalin. In update-kan cusub ay soo kordhisana iyo update badan oo kale waxaa ku kalifay marka shirkadda Zoom ay soo shaacisay in daily users-ka isticmaala maalintii ay gaarayaan 300 milyan. Taas ayaana ku kaliftay in ay soo saarto update cusub. Dhanka kale, shirkadda Facebook oo shaacisay in ay soo kordhisay Upload, kaasoo kuu suurtagelinaya in aad ku xiran karto face-kaaga ama fingerprint-iga. Xitaa haddii uu qof kaa amaansado, awood u yeelan doono in uu kala furo Messenger-kaaga. Barnaamijkan Upload-ga hadda kaliya wuxuu u shaqeyn doonaa taleefannada iPhone-ska. Kuwa Android-kana gadaal ayaa lagu soo fasaxi doonaa. Haddaba haddii aad isticmaasho taleefanka iPhone-ka sida Upload-gan aad isticmaasho, waxaad ka tagi doontaa privacy setting-ka. Shirkadda Facebook ayaa soo wada kontoroolo cusub kadib markii ay ka dalbadeen macaamiisheeda. Kontorooladaas waxaa ka mid ah sida inaad xukumi karto qofka ku soo wici kara ama qofka ku soo diri kara message. Macnaha awood waxaa u yeelan doontaa dad qaas inay ku soo wici karaan, dad qaasna aad u diiday inaysan ku soo wicin. Tusaale ahaan haddaa tahay qof oo caan ah ama qof followers badan haysto, si aysan qof walba oo ku soo wicin oo kale, waxaad awood u yeelan doontaa inaad xadido dadka ku soo wici kara iyo dadka aan ku soo wici karin. Muuqaalkan halkaas ayuu ku egyahay. Haddii aad ka heshay like saar, la wadaagna asxaabtaada.